السلام عليكم ورحمة الله كسور دوادا كنالكا أوغو maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena fadliga istighfaarta waa kan Sheekh Mustafa iyo qiso wiil Soomaaliyeed taawasho wanaagsan lista la yiri xoolo iyo caruur iyo wax walba way helaysaan hada waa astaghfirullah halay sheegayna niyaro Soomaaliyeed oo muslima oo Mareykan joogo shaqaysta oo yiri maalintii 2 astaghfirullah baa sameeyayo wax haba yaraatee nolosheeda soo hortaaga ma jiraan hooyaday baan maalintii dambe way dukaan haysato waxaan ku yiri hooyo hadaad naftaada astaghfirullah badiso dukaanka uu camirnaya islaantiina way sameysay dukaankeedu waa camirnay kuwa kale la dhaafaa waxaan uga jeedaa marka waxa la ina baraya asbaab kale aan ahayn asbaabtan maadiga inuu naqaano shilin ku darka aan ahayn oo nolosha wax ka bedeshaa inay jirto oo ah rabbus samaawaati inuu labadaba isaga qaanuun kan dhigay قانون كان في سكسكة يلا قاله إنه ليش اللقوة تيسقى دقي مع ذلك يسقى أنا كطلاب سكرة ولذلك بقى كرامات يا معجزات يا وحصل موام حي وقانون كان نقانو لقى طلاب سنة يدي كرامات ووحين ونقانو يو لقى طلاب صدي ولذلك سورة دني وحين برس أمريكا فتن كدمانتيت هذي فتنة دينية هاي يا هذي مد مالتي يا هذي مد علمتها هاي يا هذي مد سلطة هايبة إن لقت اللابسان كره هذا صورة دني منهج كده فهمتي أو قفك صورة دنا أخرية أضاء له نور بليل نور بالله فيه وبين الجمعة والجمعة وكيف سكر بالله فيه هل أنا صورة دني وحي بريسا قفك مسلم كان نلش هل هذا واحد عجبه هل هذه مشكلات كأهرية هذا هل هذا هي مبدية وقلق بيلاده سورة كبارسة سكينة حسلوني ده يطمئنين ده يهدات سورة تنخرده من قلبك وحسله وأنا وحاسك أرجح جلنين لا حق قلبك وأرجح جلنية ولا نقاليك أبدا ينبك وأرجح جلنية ولا دون دان ما الله بك وأرجح جلني سواء واحد ربيسات رب السماوات والأرض يند كحرنتها وكتحنتها ولذلك أيها الأحبة دينو سنانا سورة كورما رنتي wax badan baynu sheegi karnaa mana inaan qisaska midna mayna tafsiilin tafaasiirta ku dhigataa loo leeyahay tafsiil